maayirka caasimadda Hargeysa Mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo halkan oo aqalka weyn ee xisbiga ee dawladda ka qayb qaatay ololihiisa ka lagu nadiifinay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aqalkaasi ilaa amar dambe la xidhi doono isla markaana ay dawladdu ka tashan doonto sida uu hadalkiisa u dhigay waxaan ugu baaqay maayirku cid kasta oo ku hareeraysan isla markaana degan gudihiisa aqalkaasi inay ka fogaadaan inta dawladdu amar dambe ka soo saarayso sida uu hadalka u dhigay gacanteedaan ula tagnay meeshan xisbigu horta quranka waa laga qaaday nadiifna waa laga dhigay ummadii lahaydna way u tashanaysaa inta ka horeysa ninkii ajnabiga jooga caawa ugu dambayso iskaga guuraya dadka muwaadiniinta ah ee xogaha ka yaalyaalaana bari baa ugu dambayso bari ba haystaan oo in iskaga guuraan marka intaas dhacday laba albaab waa laga xidhaya qof xaq u leh inuu soo dhex galo iyo inuu maxaan ku raada xaar la soo doonto maaha meeshii ummadani lahayd meelaha ummaddu leedahay ee dadka ka dhaxeeya annaga uga mas'uula inay noqdaan suuliye maaha meeshan maantana waa la nadiifinaya hadda intaynu nadiifino albaabadu iska furaadaan oo bari xaar kale la soo doonto ma soconayso maanta la nadiifinaya tacab dadweynaha lagu nadiifinaya galabtaanu eegana gudoomiyaha degmaduna amarkii uu qabaa albaabada waa loo xidhaya bari bay haystaan cidii wax ka yaalaan bari bay cidii dhex degan halkan dhex degani bari bay haystaan bari gelinka dambena lebankaas oo saad dambena wala xidhay albaabada meesha marka lagu bedelayaa maayir maxaa lagu bedelay waxa su'aasha noocaas kale ah maxaa lagu bedelayaa imika kale lagama jawaabo dawladdu way wada fadhiisanaysaa qorshe ka yeelanaysaa meeshan waa magaalada bartankeedii waa ishii magaalada haddii imika fuuso dushiisa ku istaagto magaalada afarta gooni magaalada waa arkaysaa waa meel macnaha leh macnaha ay leedahay qiimaha ay leedahay ugu baahan tahay inay qaranku intuu ka wada fadhiisto waxa uu ka dhiganayo keeshiyo laakiin inta ka horeysa meeshani qashin qub ma noqonayso meel xaar kale la soo doonto ma noqonayso isagoo sidiisa noogu foolxun ayuu albaabadu u xidhnaanayaan cidna aanay soo gali karin gudoomiyaha degmada ayaanay shaqadiisa tahay inuu dhammaystiro insha Allah taala Cabdikariin Bishaawi telefishinka bulsho Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan